madasha xisbiyada qaranka ee uu hogaaminayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa war ka soo saaray xaaladda ka jirta gobolka Gedo. war saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada ayaa waxaa lagu sheegay in madasha bilihii ugu dambeeyay si dhow ula socotay xaaladda murugaysan iyo dhiiladda colaadeed ee ka jirta gobolka Gedo. madasha ayaa tacsiye u dirtay qoysaska ciidankii dhowaan ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, kaasi oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa ka tirsan Jubbaland. sidoo kale qoraalka ay soo saareen madasha xisbiyada qaranka ayaa madaxweynaha iyo xukuumadda waxa ay ku eedeeyeen in ay ciidamo gaar ah ku daabuleen gobolka Gedo ayagoo kaashanaya ciidamo Itoobiyaan ah oo aan ka mid ahayn howlgalka AMISOM. qoraalka madasha xisbiyada qaranka ayaa waxaa lagu sheegay in aad uga xun yihiin in agaasimaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin uu burburiyey qaab dhismeedkii ciidamada qalabka sida ee dastuuriga ahaa. ugu dambeyntii madasha ayaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Gedo ugu baaqay in ay u istaagaan in howlaha dowladda ka wada gobolka Gedo aysan isku bedelin dagaal beeleedyo.